السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتك وحرن يوتيوب channel كيغا افتن فشال وايدين سلامي ميل كستا الدنيا دعاليد كجوكتان وحايدين لاي هاي السوري وهذا فضل channel كهداكو عصبتا سبسكرايب نصار هورا هدانو لي جوكتا لايك يشير يو كومنتيغا انتا بنغسو ديسا ومركا لي ولاشي نفتنو ايدين لا صبحنيمو وناكسا صبحي نوتا انا كادا الحمد لله وصو نبت كعني وقرقراعني وعافمات قبنا ما شاء الله تبارك الله سانك وعافماد قبنينا إذن كانوا عافماد قبتينا رنجين دونا إن شاء الله تعالى نسود هذا إذن لا هاي جنال كوا جنال كيني مشوا مشيني يا سكسو نقد وناكسن مركز توحان جعلنا هاي إن نحققه لنا بعد الكناك لنا إن شاء الله تعالى ماشى وعمل حق الله لي إن شاء الله بعد الكنه لجسوليو قف كستو قلدنا رنت الله بشيغو رنت ضد كما ولا نحسه يا كما ولا فرحسنا اللي يجري ها maxaa naga gala qofkii runta ka naxaa ka naxo anaka runta una sheegayna Soomahan marka soo dhawaada idin leeyahay garabkaygu waa commentiga iyo like iyo share iyo subscribe-ka intaba yaan leega baqaylin waxaan ka codsaa video-gan like badan inoo helo insha Allah taala soo u noqdo video high anigana wax badan ii tara idinkana aan inkaga mahad celiyo insha Allah taala haddaad like saaran waxba videogayga ma soconaayo insha Allah waxaan isdijeen doonaa like haddaad daawatid bina like iska saartid furtid ba like ina iska saartid insha Allah commentigu qasam maaha waa ducay dhiirigelin wuxuu ii yahay aniga dhiirigelin iyo dardar maalin kasta ina video soo sameeyo insha Allah taala isku soo noqod wanaagsan idin leeyahay maanta waxaan noo wadaa video cusub videogaas muxuu ku saabsan yahay Dirisla Cabdi ECK waad ogeedeen way heshiiyeen dad badan ku farxeen dadka ku farxana inta lagu ma soo koobi karo Soomaali oo dhan aan dhigi karnaa inta ka naxday waa wax yar oo fara ku tiris mintaqaanino waa wax yar oo fara ku tiris ishii ka naxday nafta waa ma lii jirino intaas looma joojinayo inta ku faraxday ayaa ka badan Soomahan marka alxamdulillah maanta maxaa yahay fadhiganaa itoosila keetigaan baqabdar ugu fadhiyaa mistanaadin asxaabe karaal loqada intaas waa iska kaftan maxaa la dhahay inta ka naxday ayada u taala waa 1 iyo 2 iyo 3 iyo dada meesha inaan ka magacaabo aan rabin laakiin inta ku faraxday waxaan leeyahay ya wax kale idin dhahay ma aqaani soo dhawaada idin leeyahay maanta videogaas ayaan rabaa inaan reaction ka bixino videoga heshiiska ma ahan dad badan waxay ku fakarayeen Dirisla Cabdi ECK yaa heshiisiyay yaa isku keenay maxay ku heshiiyeen talow yaa raaligelinta la horeeyay horta qof kasta ee raaligelinta la hormaraa wuxuu leeyahay ajir badan qofka kale inkastoo ajir leeyahay aqbalaada hadana qofkaas uu ka sii ajir badan yahay asoo la imaad raaligelinta yaa la imaad musiika yaa la imaad bas Dirisla la imaad yaa okay anaka xataa ma ogin laakiin videoga ayaa ku dhex ogaa doonta insha Allah taala intii ku faraxdane waxaad ka arkaysiin leega videoga la saaray ku arkaysiin 8,000 iyo hee oo si marwaya video inta ma ku taala 8,000 oo qofood inta ma ku taala maya intaas waxay cadeynaysaa suulka kor u saartay videogaas inay ku faraxday heshiiskaas inay ku faraxday oo videoga soo gaaray videoga aragtay 1 hour ay kari jajab oo gaaraya hal saac yahay oo gaaraya Soomahan ay ku sheekaysanay inay soo galiyeen wallahi maalintaas waxaan ku dhahay farxadeeda ma sha Allah tabarakallah laba qofood oo taageeray ahaayeen labadooda anoo taageero ay hadal labadooda ay heshiis saas ay tahay kana waa daawo jiri kana waa daawan jiri kana commentiyan ka bixina kana commentiyan ka bixina labadoodaba maanta markasta waxaan ku hamin jir labadooda isla fadhiyo mar leh hada arkay video iska soo duubay alxamdulillah ayagoo isla fadhiyo oo video duuba waxaan dhigi karnaa youtuberada ugu cadcad Soomaalida ugu subscribe ku badan inay yihiin waxaan leenahay waa maasantihiin wado cusub aan noo furteen wadadaas aan noo furteen waxaan rajay doonaa in anaka dhan saas u qabsan doono insha Allah taala wanaagana ka shaqeynaysiin waxaan idin leenahay horumar wacan warka idinku badiya asxaabay telefoona meeshan ku heystaa waxaan rabnaa qofkii heshiiska la hormaray labadooda ina meeshan ku ogaano insha Allah taala waxaan nooga dhici doonaa walaalkeena mujoodino Dirisla Cabdi ayaa nooga dhici doona in aragtiina amaleena leerka ku aadan qofkaas ayaa nooga dhacaayo waa isla arkeena insha Allah macaana insha Allah taala isla daawasho wanaagsan ka tagtay xabatoole maxaa la yiraahdaa hotelka dhexdeeda ma garan waxaan online kaaga sheegay oo soo ikriyay laakiin waa taantigaagii markaa hotelka dhexdeeda soo qaaday fahmaysa kusoo dhawaada si soo laakiin waa islaamiya mar labaad waxaan jeeyaa caafimaad qabtiin saamalaan caafimaad qabo kale waxa arkay dad badan oo mana video soo sameeyay oo mana la yarayaa baraada Dirisla Cabdi iyo
iyo CK siday isku xideen ama ay halkan noqotay dee inaan labadii wax samayno marka video badan oo soo sameeyay jiray waxa ka mid ah heshiiska King CK Dirsa Cabdi dad baa ka naxay miyaa Dirsa Cabdi King CK oo heshiiyey sababta heshiiskooda daawo King CK Dirsa Cabdi oo heshiiyey Dirsa Cabdi King CK Dirsa Cabdi oo kulmay King CK Dirsa Cabdi heshiiskooda daawo sida ka dambeysay heshiiska CK Dirsa Cabdi degdeg Dirsa Cabdi King CK heshiiyey iyo sababta daawo sida ka dambeysay inay heshiiyeen CK Dirsa Cabdi heshiiska CK Dirsa Cabdi reelaas aanood King CK Dirsa Cabdi oo heshiiyey farxad CK Dirsa Cabdi oo heshiiyey bahebel oo xanaaqay disre sirta CK Dirsa mana waxa ay dadku doonayeen ogaadaan walaa inkastay ogeeyay ka soo qorayaan waxaan cidna moogo in aan sheegay inaan sheegay muhiimada raamida ani CK iyo maxamed saalim baa mana sidaan isku helay sidaan wax sameysnay iyo sidaan dee wada hadalin fahamsan aan markii ugu horeysay arkay CK iyo dad badan oo istagaalaya lama yaabay sababtoo ah YouTube intaas oo ku jira walba fahamsan fahamsan laakiin waxa yara gaadhay heer aan isyareeyay sidaan xaq maamula sidaan ma qurux badnayn la sameeyo mana saan in qof lagu sameeyo macal uma baqalantaba mana aniga badal ugu sameyn laa kulli waan jeclaan lahaa dee qof inuu soo xilqaami walaal walaa Dirsa Cabdi saan ma qalmin waxaan isku dayay marka arrimaha arkay marka hore Norbiya iska qosli fiidan Dirsa Cabdi waxaan dhigi karnaa waan rageed waa laandheero banaan degay wax kale oo ku tilmaami karno haba yaraatay ma jirto saala socotiin CK maalmahan cadowgiisa ama waxa badnaay dadka la xifaaltamay ayaa tirada ka batay saala socotiin Shiinataaj ha ahaado Ayub Kaar laha ahaado xaaskiis ee kala tageen adiga dad aad u badan ayaa ku soo jeesteen CK horumarkiisa may ka xun yihiin magaciisa dheer may ka xun yihiin anaka ma fahansanin laakiin cadow badan inoo yeeshay ayaan fahansanahay saas cala aligeed wuxuu dhahay si ilamo qurux badno taagan yahay maraan yaan in kaga dhicin isla dhageyso waxaan soo dhigo arkay marka mar baan siriiriniyo xal yar dambe Maxamed Dirsa waxyaaba la yar daawilisma qurux badan fahamsan waxa sameeyay waxa la xiriiray CK oo malaha qof caad lambarkiisa ma qof caad raadid ku balweydiya wala taas weeyo yarta fahamsan inkastoo dad weydiin laakiin aduu lambarkiisa wanay mana sida ku helay yar fogtay laakiin lambarkiisa wanay sheeka dheer kadibna waxaan qoray saaxiib qaal ku salaamay anuna si kasta ku naga yaaba marayna si kaaga soo jeeday yaaba inaan soo xifadin laga yaaba laakiin si meelaha qaadadka aanu kama galo marade أنا كاسمي بلا قاد مجانا كون فاهمسا كنا وعاء سوري وعاء قوي كنا نسوق محاول كذا درسي ده تايرات هاي بيصيروا على كل بكتيري هذا مرة بيصيروا على حكور ساعة يرسوا على سواعي وعاء كدينا وحول بنانا من حكور ساعة قالي تسلاعي أنا كل عمري على وحياة قرقون في عشان قان شلالين وما راح فترة الحين كان هي كيم قال يسويه يقولوا أوجع صاحب راح أبوك صار بولي وحامل معنا مسكحة كده تجيبولي تشعب ملاس وكلام مقلو ورون مجرين الحمد لله نقول لك فراسناي كدي waxaan ku yadu waa halalay inaan idin sheego ma waxaan niliye waa yara halalay waxaan ku saaxiib qaali la laaba ku ina fiido oo sameeyna sababtoo ah inay kaliyaatu maaha ee macadadkii faa'iido halay ban ku maana dad baa nakala taageera dad baa maraa team dirisada dad baa CK family lada ama dad baa bade maana labadaba ku jira marka waxaan ku qurux banaan lahayd in aan malaade mar aragno internet watiga ku leeyahay shana shay harsaneed oo maanta tan shay harsan maantadan waxa daawanaysi video Britole marka maanta waxa weeye bishu 8 waxay harsan 9 saddex shay harsan wada kan jooga fahamsa wala aniga video daawanaysi saddex shay harsan marka waxaan ku saaxiib aniga shay harsan marka meel xagan dan kaliya adigana ku dhow hadii ay malaha ku dhiibay tahay ma kartaa malaha isku arki kana bigu okay dimalahan meeshii baan ku kulanay oo sheekaysanay soo horeeyay ku sheegay live ka dhaxeeda maalintii ugu horeysay arkay ama hal daqiiqo la joogay baadina ka yareynba laakiin markii labaad malaha impression joognay ahayd markan labaad ay sarkeen defiyaasha sameynay soo raadii waxaas kadibna wada sheekaysanay فيديو ما وصلنا صورة بعض كلنا صور دقنا اجتماع معنا يابا فيديو ده استدك قاعد بوجه هذا معنا أجرا ما يبريد توري تجاري دول لكن فيديو ده قاعد بوجه لهم معنا نقطة أنا أمين ويهاي بقى فيديو جوري فيديو عادي معنا هسي وحين إنترنال لا يجاري مكان استسعاد بيلا كنتم كن أو لايك بالاسارين فهميسه كلام معنا بري ساعة مسا كنت دون نقطة طبعا كنا كومنت بيحسن معنا فيوز كنا توصل مركا برضو حول الألبوم ما سنتي معنا فيدباك كان عارفني فيدباك على غرفة بوها
ما شاء الله تبارك الله saad aragteenba oo dirisle cabdi oo noo sheegay walaalkeena uu mahadsan yahay labada qof ee ragga ee way isdilaan wayna isdhaawacaan wayna heshiiyaan sheekadu naag ma aha isjijiida sanadka naagihii aba heshiinooyaba nimankii ragga intay joogaan walaalkaaga Soomaaliyeed hadduu cadow badan oo yeeshay haddii aad garab siisay ood garab istaagtay oo adiga waxaad u qabtay candhuufta aad gadaal dam u siisay waxaan dhihi karaa siikay dirisle cabdi nin rageedaan dhihi karaa maasha allah tabaaraka allah wanaagu sameeyeen wuu ku mahadsan yahay midaan ku dayo doonana waaye saad haddaba aragteen heshiiska waxaa bilaabay oo la xiriiray dirisle cabdi ayaa siikay la xiriiray saas calaa adligeed ayuu heshiiska ku dhacay waxaan leenahay walaalaheena kuwii wanaagooda meesha kasii wado oo kasii laba jibaaro oo sii faafiya inuu noqdo insha allahu tacaala cadowga siikay iyo dirisle cabdin waxaan leenahay cagta hoostiisa khayr badana idin rajeynaa videoga xig inta ku kulmi doono sheerka commentiga subscribe-ka kulli ha naga baqiilnina waa walaashiina markasta idin le garabkiinu waa ii muhiim khayr badana idin rajeynaa videoga xig ku doono. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.